بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا بالأكاديمي يكورسديني personal development skills. ما أنت كورسدينا waxaan ku qaadan doonaa module-keeni labaad qaybtiisii labaad inagoo maanta eegi doona social health ciwaanka la yiraahdo. hore waxaynu soo aragnay module-keenan labaad in uu ciwaankiisu ahaa health and wellness, caafimaadka iyo badqabka. sidaa darteed waxaynu hore u soo qaadanay physical health, badqabka jireed baan soo qaadanay. maanta waxaynu qaadan doonaa social health, badqabka bulsheed iyo caafimaad qabka iyo habka ugu wanaagsan ee la xiriiri karto bulshadaada. Your social health concerns the relationships you have with the people around you, or your family, friends, neighbors, teachers, classmates, and so on. waxa la yiraahdo social health wuxuu la xiriiraa badqabka bulshada, wuxuu la xiriiraa ama badqabkaaga bulsho la xiriirku waa xiriirada aad la samayso dadka kugu hareeraysan sida qoyskaaga, asxaabtaada, jaarashaada, macallimiintaada, ardayda isku galaaska tihiin, dadka aad wada shaqaysaan, dadkaas oo dhan xiriirka aad la samayso ayaa la yiraahdaa social health. And people with good social health have positive and supportive relationships. dadka good social health, dadka oo caafimaadka qaba bulshada inay dhex galaan waxay leeyihiin had iyo goor si togan ba u fikiraan, waxaanay sameeyaan bulshada waxay leeyihiin xiriidho ay bulshada isu taageeraan bay leeyihiin. They treat others with kindness and respect. dadka waxay kula dhaqmaan naxariis iyo tixgelin. bulshada kugu hareeraysan waa inaanad soolana ka noqon ama aanad adigu iska xirxirin, naftaadana ka xirxirin. haddii aad noqoto qof xirxiran oo keligii socdaa ma wanaagsana. bulshaad la nooshahay, dadka deegaanka aad kula nooshahay waa inaad la xiriiri karto, weliba xiriir wanaagsan aad la samayn karto, si haddii aad caawimo u baahato ay ku caawiyaan, iyagu haddii ay caawimo u baahdaanna aad adigu garab u siiso oo aad u caawiso. Your social health also includes your role within society as a whole. social health-kaagu waa roolka ama doorka aad bulshadaada ku leedahay by getting involved in your community, adiga oo noqonaya ruux ka dhex muuqda oo ka dhex dhalaalaya bulshadiisa ama bulshadaada. Stress, waxa la yiraahdo stress baa jira. stressku sidiisa waxa la yiraahdaa afka Soomaaliga qulub baa la yiraahdaa. waa dareenka qalbigaaga ku jira oo xumaado weeyaan, ama cara ha keento, ama niyad jab ha noqdo, ama naxdin ha noqdo. stress waxa la yiraahdaa qulub baa la yiraahdaa afka Soomaaliga. Stress is an emotional response that can cause many physical reactions. Stressku waa jawaab celin, waa dareen jawaab celineed kaasi oo sababi kara physical reactions, kaasi oo sababi kara falcelino jireed buu sababi karaa. inaad jir ahaan uga falceliso, ugu yaraan falcelinta jireed ee aad bixin kartaa waa inaad wejigaaga ururiso markaad dareen cadho dareento, waa inaad wejigaaga ururiso oo aad kojiso. Causes of stress, waxyaabaha keena haddaba stresska ama qulubka. Demands from family or friends, dalabaad kaaga yimaado qoyskaaga ama asxaabtaada. saaxiibkaaga kala ku dalbaday ama kharash buu ka dalbaday ama caawimo, adiguna ma awoodid hawlaha kuu furan, sidaa darteed isagiina kama gaabsan kartid oo waxaad diidaysaa inaad isagiina tiraahdo waxaa kuma qaban karayo, haddana hawshaadii baad diidan tahay inaad ka timaado. sidaa darteed labada xaaladood dhexdooda markaad ku jirto stress baad dareemaysaa, qulub baad dareemaysaa. waxaa laga yaabaa waalidkaaga ama qoyskaaga inay dalabaad ka sameeyaan, sida gabdhahoo kale. inagu Soomaali ahaan caado waxaynu u lahayn in gabdhaha guur aanay jeclayn lagu qasbo oo kale. inanta aabaheed ayaa siin jiray nin kale oo isagu soo arkay oo aan iyada soo heshiinin. sidaa darteed inanta waxaa ku iman jiray stress ama qulub baa ku imanaya inantii oo niyad jab baa ku dhacay.
Major life's challenges such as death, divorce, illness, and injury. sidoo kale qulbiga waxa keeni kara carqaladaha nolosha ee waaweyn ama dhibaatooyinka ama fidnooyinka nolosha ee waaweyn sida death, dhimashadu waxay keeni kartaa murugay keeni kartaa oo stresska ka mid ah qulbiga. Divorce, furniinka ayaa isaguna stress keeni kara. Illness, bukaanka stress keeni kara. And injury iyo muxuu ahay dhaawac soo gaaray intuba stress bay keenayaan. laakiin maxaa loo baahan yahay in aad samir iyo calool adag kaga baxdo dhamaantood baa loo baahan yahay oo stressku wax ku sii anfacaya maaha aad ku sii jiri karayso. haddii aad ku sii jirto in muddo aad haysana wuxuu keenayaa in jir ahaan aad u burburto oo kugu yimaado distraction baa kugu imanaya, burbur baa kugu imanaya. Job problems, stresska waxaa keena dhibaatooyin shaqo such firing from the work or punishment, sida haddii lagaa eriyo shaqada oo kale ama lagu ganaax shaqada muxuu ahay laga saaro. For example, wax lagaa eriyo shaqada dhowr bilood baa lagu ganaax baa muxuu ahay aad tahay oo aad maqnaanaysaa ama mushaharka lagaa goynaya baa lagu stress baa dareemaysaa qulub. haddaba stress management techniques baynu eegi doonaa waxaa la yidhaahdo farsamooyinka loo maamulo stresska ama waxaan la yidhaahdo qulubka ama dareenkaaga oo xumaada siyaabaha loo maamulo. Read adkaar, waa inaad akhrisato dikrigii. innagu ummad muslimiina waynu nahay, marka uu dareenkaaga xumaado markiiba waa inaad xagga Ilaahay u cararto, waad adkaartii ku habboonaa akhrisato. Get moving, ka dhaqaaq meesha. tusaale ahaan haddaad carooto rasuulkeenu waa kii nagu sallallahu alayhi wa alihi wasallam markaad xanaaqdo ee aad taagan tahay fadhiiso, haddii aad fadhidana jiibso. Make time for yourself, si aanad stress u qaadin marka horeba naftaada xaq sii oo time gaar ah si naftaada oo ay nasato, wax cunto, fikirto, muxuu ahay cibaadaysato. naftaada waa inaad waqti gaar ah u samayso. Talk to someone, haddii aad stress dareemto isfurfur oo dadka la sheekayso. Learn from experience, khibradaha iyo waxyaabihii ku soo maray noloshaada waaye aragnimadaadii hore wax ka baro. oo doqonnimay noqotaa waxyaabaha qaarkood haddii ay kugu soo noqoto dhibaatooyin marar fara badan hore kugu soo dhacay oo aad xallin kari weydaa, doqonnimay kugu noqonaysaa adiga. sidaa darteed waa inaad wax ka soo barato dhibaatooyinka hore kuu soo helay oo aad hadhowtoola ka gudbi karayso. Learn to say no, waa inaad barato ama aad taqaano ereyga maya. ereyga maya waa jumlad luqadda ka mid ah. No waa jumlad luqadda ka mid ah. sidaa darteed haddii aanad awoodeyn dalabaadka mararka qaar lagu soo bandhigo dalabaad aanad awoodin adigu, waa inaad maya tiraahdo adigoo ka cudur daaranaya. Staying safe, badqab ama caafimaad qab. Taking responsibility for your health, including assuming responsibility for your safety. mas-uuliyadda inaad caafimaadkaaga qaado waxaa ka mid ah inaad mas-uuliyad iska saarto adigu nabadaada iyo amnigaaga iyo muxuu ahaay badqabkaaga. Some suggestions for staying safe, kuwan ayaa ah talooyin la xiriira in aad nabad iyo badqab ku joogto. Be aware of the risks, khatar haddii aad wajahdo ka digtoono mar walba. Be prepared, mar walba qof diyaarsan ahow. Follow the rules, xeerarka raac. Protecting yourself from violence, naftaada waa inaad ka ilaaliso colaadaha. For example, robberies baa meel dad ku qabsaday, dabeetana meel baa dagaala ka dhacaya oo dhagax iyo xabad iyo waxbaa ka dhacasa. waa inaad ku cararin meeshii oo dadkeenu inagu haddaynu Soomaali nahay balaayo jacaylka inagu yar badan oo waxaynu ku yaacnaa meelaha balaayadu ka dhacdo. qodobkaas waad iska ilaalinaysaa. waa in aad ka digtoonaato meelaha colaaduhu ka jiraan si aad mas-uuliyaddaadii nafta kaa saarnayd u gudato. No matter where you live, you can't assume that you are safe from crime. waxba sheegi mayso meel kastood ku nooshahay, adigu ma garan kartid in aad badqabi doonto ama aad ka badbaadi doonto dembi.
What you can do is to take precautions that will help you. waxaad qaban kartaa laakiin waa inaad marka horeba digtooni samayso ka hortag samayso kuwaas ku caawin doona tusaale ahaan waxaad aragtay mudaharaado socdo oo ay dad dhagaxasiteen dabeetana ay jabinayaan agabkii ama muxuu ahaayay adeegyadii bulshada ee suuqyada yaalay oo inaad iska ilaaliso meesha ugu habboon ee aad ka bixi kartana aad uga dheeraato si aanay dhaawac naftaada u soo gaarin waa inaad muxuu ahaayay naftaada ka badbaadin karto. Don't put yourself in harm's way unnecessarily. naftaada ha ku tuurin halis iyo halaag si aan muxuu ahayn daruuri macnaha haddii aan wax waajibi ku kalifayn naftaada ha ku kadeedin wax aan waajib ahayn. dhinacyada naftaada aad ka ilaalinayso ama aad waxyaabaha aad ka digtoonaanayso waxa kamid ah at online-ka at school dugsiga in the community iyo bulshadaba. online-ka waxa ka dhaca crimes dambiya ka dhaca in xogtaada dadka qaarkood ka qaadaan oo ay muxuu ahaayay kugu torture gareeyaan ama ay kugu qasbaan oo kugu cadaadiyaan xogtaadaas xog qaldan iyadoo ah ka gudbiyaan oo inta bulshada astaqaanaan gudbiyaan iyagoo ka doonaya lacag oo kale kugu xidhaya sida waxa la yiraahdo sextortion oo kale inay kugu sameeyaan. marka online-ka laftarkiisa crimes baa ka dhaca dambiyo marka naftaada waad ka ilaalinaysaa dambiyada crimes-ka ee online-ka ka dhaca. at school dugsiga dambiyada ka dhaca naftaada waad ka ilaalinaysaa. in the community iyo bulshada dhexdeedaba dambiyada ka dhaca naftaada waad ka ilaalinaysaa hadday mudaharaad noqoto iyo hadday waxyaabo kale noqotaba. intaas waxaynu kusoo gabagabeynaynaa module-keenii labaad qaybtiisii labaad. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانو idin jecel lahay nagu xidhnaada waad mahadsantihiin.